dharkeeley kubadda waxa ay taallaa bartamaha garoonka waxaa la sugayaa in Capitano Faisal uu kubadda markaa uu baaso dirbo ay baasteen dharkeeley gadaal ayaa loo soo furay markan dharkeeley ayaana dhankeeda loo soo tuuraya labada degmo waxay wataan guulo waxaana ay soo guuleysteen golayaha dharkeeley ayaa kubaddii balzoonka ahayd banaanka u saaray gobolada ee Puntland wala soo tuuray kubaddaasi madax ay galeen markale Shibis waa kan haya waa ka halis waa iska soo saareen markale ayaa lagu helay degmada dharkeeley banaanka ayay u baxday akram ayaa soo tuuray kubadda daafici xulka Puntland wala soo laaday kubaddaasi markale waa ka Shibis qatar waa laga soo saaray waa kan haya weerar qatara ay dharkeeley Faisal geesi ayaa kaga soo hormaray kubadda Abdulghani Karig waa uu farsameystay markale waa kan Karig la soo ciyaaray saaxiibkii waa kan haya dharkeeley cross fiican ayaa la keenay waa kan markan qatar dharkeeley gol sheekada gool ay ka dhigan degmada dharkeeley Shibis waa loogu naxsaday ciyaarta kubad isku dhacday ayay ka faa'iideysteen waxaana ay ka dhigeen ciyaarta hal gool yeber kadib markii Saadiq uu kubaddaasi u dhaliyay Karig ayaa kubadda u soo baasay saaxiibkii waa la soo dhiibay cross fiican ayaa la geeyay waa uu ka faa'iideystay xabad ayuu saaray waa uu sii jiiday waa isku dhacday kubadda on goal weeraya sameynaya degmada dharka Shibis kubaddaas waa ay soo galeen banaanka golaya liibanaya kubadda qabtay waa kan haye dhaxkadiib iyo cross fiican ayuu keenay ciyaaryahan Cabdi Aadan waa bita ya salaam isbedel badan ay sameeyeen markale waa kan haye markale waa ka Shibis dhaxkadiib qatara markan halis haye gol haye liibanaya kubadda qabtay wala soo laaday kubadda haye markan halis Shibis dharkeeley weeraya lagu yaa banaanka soo qaaday kubadda waagaag si waxaan ayaa kubadda ay u soo galay salis waa laga soo saaray kubadda waagaag waa kan haya mar kale Karig no penalty ayuu yidhi mar kale waa kan haye cross fiican ya salaam gool waa laga soo bixiyay halis bayaad mar kale haye banaanka Karig banaanka ya salaam hal daqiiqo waxay ahayd ka xanuun badan 90kaba waxaa lagu qaaday duulaana isdaba jooga waxaa la weerar shabaqa uu waardiyaa ka yahay golaya geesay aad baa loogu daay sidii shinidii oo kale ayaa lagu shumuumsamay waa uu difaacay golayaha waa ay soo baxday waa lagu celiyey waa ay soo bixiyeen daafac ayaa soo saaray golayaha waa ay dhaaftay mar kale Karig ayaa helay waa uu ku daayay habadiisa ku talay ya salaam waa kan haye Faisal ayaa kubaddaasi haya Faisal Karig waa laga soo saaray kubaddaasi Karig ayaa kubaddaasi haye waa ka Karig ayaa soo dabay kubaddaasi banaanka ayuu soo dhigay geesi ayaa ku soo hormaray kubadda oo qabtay waagaag mar kale waa kan waa haya Faisal banaanka Karig dharkeeley ayaa ogaaka la wareegtay mar kale waa isii dhaleystay weliba dharkeeley sheekada waxa ay ka dhigeen 2 gool iyo eber Karig ayaa markaasi hoo yidhi Shibis ayuu ugu shubay ciyaaryahan Karig kubad banaanka loo soo dhigay ayuu doomarsii golayaha saaxiibada yihiin ee geesay 2 gool iyo eber dharkeeley kubadda waxaa ka soo shaqeeyay weeraryahanka xooga weyn
joogdheeraha kooxda kubadda cagta ee Dharkeenley bannaanka ayuu soo dhigay crosska waa uu qabtay bidix ayuu ku katarolay geesay wuu soo baxay halkeeda ayuu markaasi dhigay waxaana uu ka dhigay sheekada 2 gool iyo eber ciyaaryahan Cabdiqani Kaarig Shibis ayaa markaa weerar sameynaysa fursad cajiib ah degmada Shibis waa karaaye waa uu soo dhigay markalaaye Allah halis waa ka markala waa laga soo saaray kubadda Dharkeenley waa markaa weerar ay sameynayaan degmada Dharkeenley waa jaaniskii ugu dambeeyay ciyaarta Dharkeenley ayaa kubadda haystaan waa karaaye saaxiibkii la soo ciyaaray markale Dharkeenley ayaa kubadda haystaan waa ka la soo karosay saaxiibkii uu soo furay ciyaartana waa gabagabo 4 daqiiqo ayaa ilaatay waxa la sugaa waa in garsooraha Diftaax Saciid Mire uu garsooraha uu ka dhawaajiyo seeriga waa la dhigay Shibis ayaa laadanaya kubaddaasi waa la soo tuuray mar kale ugu dambeyn ciyaartii waa ay soo ilaatay kulankii u dhaxeeyay Dharkeenley iyo Shibis waxa lagu kala baxay 2 gool iyo eber way ku badiyeen degmada Dharkeenley dhaliyaha goolka hore waxa ay ahayd kubad on gool iska dhaliyeen degmada Shibis halka goolka labaad uu dhaliyay Cabdiqani Kaarig 2 eber iyo ku badiyeen Dharkeenley sidaa daraadeeda 6 dhibcood ay ku hogaaminayaan groupka iyadoo Shibis 3 dhibcood ay leedahay waa bari iyo wadajirna haatan hal ay soo cagacageerayaan ayuu ku ciyaaraya garoonka Engineer Iriso Stadium waa nagita tabintii idinkaga iimaanaysa waa garoonka markaasi Muqdisho Stadium nabadgelyo